شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا جيمي كارتر waa madaxweynihii 39aad ee soo mara talada dalka Mareykanka isagoo talada dalka Mareykanka la wareegay 20kii January sanadkii 1977 isagoo talada ka dhigay sanadka markuu ahaa 20kii January sanadkii 1981 madaxweyne Jimmy Carter waxa uu dhashay 1 October sanadkii 1924 isagoo ku dhashay deegaanka Phoenix ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka madaxweyne Jimmy Carter waxa uu kamid ahaan jiray ciidamada badda Mareykanka gaar ahaan qaybta gudisiyada nuclear-ka qaabilsan isagoo shaqada ciidamada badda Mareykanka isaga tagay sanadkii 1953 madaxweyne Jimmy Carter waxa uu kamid ahaan jiray golaha odayaasha deegaanka gobolka Georgia ee dalka Mareykanka sanadihii 1963 ilaa 1967 sanadkii 1970 waxa madaxweyne Jimmy Carter noqday ama ku guuleystay xilka gudoomiyaha gobolka Georgia ee dalka Mareykanka isagoo sanadkii 1971 ilaa sanadkii 1975 ahaa gudoomiyaha gobolka Georgia madaxweyne Jimmy Carter waxa uu sanadkii 1976 galay tartanka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka isagoo kalsooni ka helay xisbiga dimuqraadiga Jimmy Carter waxa uu kula tartamay kursiga dalka Mareykanka madaxweynihii markaas talada hayay ee George Ford taas oo keentay in madaxweyne Jimmy Carter uu ku guuleysto doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 1976 markii madaxweyne Jimmy Carter uu la wareegay xafiiska looga tarsho dalka Mareykanka waxa uu caafiyay dhammaan dadkii ka dhuntay inay askar noqdaan intii uu socday dagaalkii Vietnam intii uu ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu madaxweyne Jimmy Carter ku soo kordhiyay golaha wasiirada ee dalka Mareykanka laba wasaarad oo kala ah wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda tamarta madaxweyne Jimmy Carter waxa uu qayb ka ahaa heshiiskii Masar iyo Israa'iil ee loo yaqaanay heshiiskii Camp David ee dhacay sanadkii 1978 sidoo kale madaxweyne Jimmy Carter waxa uu qayb ka ahaa heshiiskii kanaalka Panama ee dhacay 7 September sanadkii 1977 oo dhigay in Mareykanka wareejiyo kanaalka Panama kuna wareejiyo wadanka Panama kaas oo ay saxiixeen labadii hogaamiye ee wadamada Mareykanka iyo Panama ee kala ahaa markaas madaxweyne Jimmy Carter iyo Omar Tariq madaxweyne Jimmy Carter intii uu ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxa korortay shaqo la'aanta intii uu ahaa madaxweynaha Jimmy Carter waxa dhacday dhibaatadii tamarta ee dhacday sanadkii 1979 taasoo sabab u ahayd kacdoonkii dalka Iran ka dhacay iyo dhibaatadii ku timid suuqa naftada caalamka ayaa sababtay in Mareykanka dhibaato dhanka tamarta ah ku dhacdo madaxweyne Jimmy Carter waxa uu ka soo horjeestay sanadkii 1979 duulaankii midowgii Soviyetka ay ku qaadeen dalka Afghanistan taas oo keentay in madaxweyne Jimmy Carter uu ka baxo isku soo dhawaanshihii Mareykanka iyo midowgii Soviyetka isagoo hogaamiyay diiday ka qayb galka ciyaarihii Olombikada adduunka ee ka dhacay midowgii Soviyetka sanadkii 1980 waxa uu ku fashilmay madaxweyne Jimmy Carter soo deyntii shaqaalihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Dhahran laga afduubtay safaaradii 4 November sanadkii 1979 iyo fashilkii ku yimid howlgalkii military ee madaxweyne Jimmy Carter ku rabay soo deyntooda taas oo keentay in madaxweyne Jimmy Carter uu galo mugdi dhanka doorashada bishii November sanadkii 1980 waxa uu madaxweyne Jimmy Carter ku fashilmay in mar labaad loo doorto uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka oo waxa ka guuleystay madaxweyne Ronald Reagan madaxweyne Jimmy Carter hadda waa xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka 12 Agosto sanadkii 2015 waxa madaxweyne Jimmy Carter laga helay in uu qabo cudurka halista ah ee kansarka شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا